munaasabad si ballaaran loo soo agaasimay oo loogu dabaaldegayay xuska dhalashada nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. munaasabadan oo sanad kasta ay soo qaban qaabiyaan si weyn ugu sii diyaar garoobaan culimaadoodinka sunna wal jamaa ee ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa waxa isugu soo baxay kumanaan dad ah oo isugu jira rag iyo dumar iyagoo socod dheer oo lugana ku soo dhex maray wadooyinka dhaadheer ee dhex maray xaafadda Islii waxaana ugu dambeyntii dhammaan dadweynahaasi ka qayb qaadanayay xuska dhalashada nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee isugu soo biyashubteen garoonka weyn ee ku yaala dugsiga sare ee xaafadda Islii waxaana halkaasi khudbada ku waajahan dhalashada nabigeena suuban iyo in la weyneeyo maalintan oo kale ka soo jeediyay qaar ka mid ah culimaadoodinka sunna wal jamaa waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan. waxaan ognahay ee aad idinkoo dhanba wada ogtihiin mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam in habka loo dhigayo iyo maxabada ay ummadiisa muxibiinta ee u hayaan ay sii kordhayso oo sii ziyaadayso oo dadka arrinka u cishqisan ee jecel ee qalbiga ku hayo ee u kalbanaan had iyo jeer ay sii kordhayaan sanad walba sanad ka dambeeyo in arrinka uu sii ziyaadayo indhihiinaad ku aragtaan. rasuulkeenna sallallahu alayhi wa sallam sida culimada xufaadii ay yiraahdeen xafladiisa oo la dhigay waxa ay tusinaysaa rasuulka maxabadiisa sallallahu alayhi wa sallam waxay tusinaysaa tacdiimka rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxay tusinaysaa shukrillahi ala ma manna min ijaad rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam alladhi arsalahu rahmatan lil alamin ku shukrin lagu shukrinayo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam manaysiga ilaahi uu inoo galladaystay oo caalamkan uu ku galladaystay kaasoo isagoo raxmada u diray maxay rasuulkeenu sallallahu alayhi wa sallam isaga wuxuu leeyahay ida ubliya bala markii matalan ba ma aragtay ruux loo nicmeeyay nimco markii loo nimceeyo oo fadakarahu faqad shakarahu oo sheego waa ku shukriyo wax hadda la isu sheegaya ma aha rasuulka ilaahay baa weyneeyay oo koonka markuu u soo baxaya wixii ka dhacay waa la ogyahay anigu hadda taa kuma dheeraanayo intaa kadib waxaan mahad u gudbinayaa dadka rag iyo haween leh ee isugu soo baxay maxabada rasuulka iyaga oo rasuulkooda jecel. Cabdillaahi Cabdi Cali TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland magaalada Nairobi.